ninka ayaa daaqadda diyaaradda ka fiirinayay cirka markii si lama filaan ah uu arkay wax aan caadi ahayn. haweeney aad u qurux badan oo duulaysa islamarkaana diyaaradda garabkeeda ku soo socota. markii hore wuxuu u malaynay in indhihiisu daaleen oo ay wax u muuqdeen. laakiin markuu mar kale eegay weli way taagnayd, indhaha ayay ku qabanaysaa, waxayna u dhoola caddaynaysaa iyadoo gacanta u wada. dhiiggiisii ayaa kari waayey, wejigiisuna wuu dhididay cabsi darteed. si degdeg ah ayuu indhaha uga jeediyey daaqadda, balse yaab iyo welwel ayaa isku darsamay. wuxuuna mar kale isku dayay inuu fiiriyo. markan ma jirin, way ka luntay. wuu neef tuuray oo yara degay, laakiin ilbidhiqsiga xigay markuu madaxa dib ugu laabtay daaqadda halkeeda ayay mar kale taagnayd. cabsidu heerkeedii ugu sarreeyey ayay gaartay, lugihiisana awood ma uusan u helin, wuu dhacay isagoo qaylinaya. rakaabkii kale ayaa argagaxay, waxay u maleeyeen inuu riyo xun ku jiray. dhaqdhaqaaq la'aan iyo gariir ayuu ku jiray markii adeegto diyaaradeed flight attendant u soo carartay iyadoo leh sir ma fiican tahay. laakiin wejigiisa midab ma uusan ku harin. wuu orday isagoo ku cararay musqusha diyaaradda. isagoo isku dayaya inuu deganaado ayuu isha saaray muraayadda, waxaana mar kale ka soo hor muuqday isla haweenaydii cabsi gelisay. wuu qayliyey, si xawli ah ayuu uga siibtay musqusha isagoo ku dhacay marinka diyaaradda. adeegtooyinkii way isku dayeen inay qabtaan, laakiin jidhkiisu wuxuu noqday aday, cabsi awgeed wuu gariirayay. markaas ayaa sarkaalka nabadgelyada ee diyaaradda Sam soo baxay. wuxuu ninka si tartiib ah u qabtay, wuxuuna siiyey daawo dejin ah si loo xakameeyo xaaladda una yareeyo cabsida rakaabka kale. Sam wuxuu ninka ku celiyey kursigiisii. adeegto ayaa ku dhawaaqday si degan, fadlan qof walba fadhiista ha ahaado. waxaan maraynaa jawi ruxruxan turbulent. mararka qaarkood dadka waxay la kulmaan welwel ama argagax marka hawadu kacsan tahay. laakiin su'aasha dhabta waxay ahayd, ma argagax keliya baa uu ninku isku dhacay mise waxay ahayd wax ka argagax badan.